دينا العفية سين كلها هاي وحن قادن إن دين العفية هرت هل دين ولا قاعد في مجرته بل أنت دين اللي قارن دل كان العكتي أور اللي دولار بانو كطور بهال كانوا يسو طور يا دل كان العكتي اللي مركانو كهلا إنه فاينانسي أما معامل العياد كهلا إنه مالية waxa ugu horeeyo waxa weeye dalku inuu leeyahay currency lacag isagu uu leeyahay marka deyna la cafiyo wax kale oo dadka loo sheegay la way saakiintaha waxa loo geliyaa oo kale loo geliyaa madaxweyne farmaajo wuxuu rajeynaa abi axmed inuu kursi ku hayo axmed madoobe wuxuu rajeynaa uu suga uhuru kiyato inuu kursi ku hayo war allah ya war wadankan si dalkeen anaga iskale dayn cafintan Soomaaliya ee waliba la yiri bisha Maarso bishan hadda aan galna ayaa sanadkii hore la dhahay waa la cafinaya xagee horta dayn cafintaas maraysa taasbil digeeg waay horta caalib baan hadii lagu celceliyo mugdam baay bakool waxa ka dhacdo doorashada galmudug ka dhacda kugu celin mugdam waa iska aamina wax ila jiraan deena la cafiysiin oo kugu lahay waxaan qaadan in deen la cafiyo horta hal deen oo laga cafiyo ma jirto shiino lacag yar ay iyadu lagu leeyahay cafis 5 bilyan kuma leeyahay waxaana lagu lahay 4.6 bilyan waa dhamaadkii 2017 ka qoraalka soo ahay waxaana lagu lahay lacagtaas 27 hay'ad ama dawlad oo kala madax banaan inta la soo ururiyay shanta ugu waaweyn waxa lagu leeyahay waa Mareykanka Talyaaniga Faransiiska waxa ku xigay World Bank iyo IMF حتى percentage كأنه كلها وكل شيء كذا. China بس أنا قاعد في السعودية يقول لك إسكتشوال أنا سمينا هو الدماء ولا بقول لي 1 مليون ونقولها يصير. حتى مركز إسلام وورلد بانك مركز هذا اللي جو هذليس. ضغط الدين تو حد بلور دقي أما إن الكود عفية ما 2021 سنة كدبة فبراير دي بلور دقي وحلا صحيحة. أنا كلامنا نكون قبض صحيح عبدك صحيحة قال كود دكتور هبل قال الدكتور ولا حل له يقال ورقة الدكتور كوقت بس صحيحة ده أدو لسي صعد قف كتير ترى دي وحكى لك قرصر ولا سودي قال دايما هاسبركة جودي واتي لسوبي تكنيكال ووك جروب وحال سمي هلا ما ريشنا بس 2013 iyo 15 kadib ma bashirin جودي تكنيكال تيم كشغينا dib dambe uma shirin waa uun tagnaa waa soo naqanaa deena marka institutions kale financial international financial institutions marka iyagu ay ka cafiyaan deen lagu soo sii karaan dawladdu waxay kugu lahaa inay gooni u tahay iyaga waa Paris group club iyo non Paris club iyo multilateral saddex qayb oo kala baxaan waxa lagu leeyahay waxa la yiraahdaa marka si labadana ay lacag ugu yeelan oo shuruudaas u buuxiyo adiga iga bixi deynta iyaga siina laakiin ana ugu lahaanay Norway lacag naga bixisay waxay siina World Bank waa laga tira adna Ingiriis lacag naga bixiyaa la siina bangiga horumarinta Afrika iga tir institutions ka marka deyntooda ka tiranto markaas kadib alle waxa la sii karaa deyn labaad laakiin kuwa lagu lahay ee wadamada ay kula 4.6 ka wax ka cafiya ilaa hadda waxa kaliya ka jiro waa شينا انت ويعفني سواتلي انت رسي عفس بس تذكر وقلده هل بليون او مريكا لعقت دولته هره waxay tiri xana ka cafi انت رسي بدل على العافيه markii laakiin ruud kala lacagta waliba asiga laftii sharad uu leeyahay lacagta mareykan ugu leh 600 xoogaa ahayd 400 xoogaa bad انت رسي naqatay انت رسيgaas la jiro waliba markaas dood fiican kale waxa la lacagtaasna la deemi maxay ku baxday balance of payment-iga markii lacag oo Sacuudiga ay soo gali jireen dawladda hor la kabaay lacagta qaar kamidna waxa ku baxday ciidamo waxa jiilkan hadda aad gudan leedihiin lacagtaas ma arkinba lacag kale waxa la yiraahdaa deyn la siiyay ma maamulo karaan sababta loo leeyahay hadda riboorka World Bank saraakiishiisa dhaqaalo ay qoreen waxay leeyihiin anaga kaliya iska dhaaf 75% wadamada aan lacagaha siino 75 xad weyn waay overseas account ay ku dhacaan yaa ka cilay Soomaaliya inuu ku dhaco ma maamulo karaan deyn haddaan siino ee ana u maamulay soo kugu maamula World Bank-iga ama madaxdiisu waxay leeyihiin 75% lacagaha deynta account banaanka ku dhacaan oo iyaga laftooda ay qayb ku leeyihiin shilin la ka cafiyo ilaa hadda ma jiro laakiin process
in interest-yada la ka cafi isku dir jidki waa fiican tahay deyn kalaa baa la rabaa world bankiga asaa raba deyn kale inuu soo qaado oo calanka magaceeda lagu soo qaado marka asugu deyn laguma le markaas wixii lagugu lahaa ha kugu lahaadaan dowladahaas kale oo la xawilay deyntaasna asaa kuu maamulayo meesha ay daraynayaan inuu asugu kuu maamulo boqolkii 25 la sheegayana kaa soo gaaraysa inta kale kuma soo gaaraysa haye arrintaas maxaad ku daraysaa deynta horta anugu waxaan ka qabaan kuu sheegaya haye horta marka u horeysa dowladdu waxay leedahay mashaariic horutabyo leh haye bal intaan deyn la gaarin dalkan lacagtiisii aawo horta haye ilaa dollar baanu ka tuuraa bahalkan oo iisoo tuur ya haye dalkan lacagtiisii ilaa markaanu ka hadlayno finance ama maamul lacageed ka hadlayno iyo maaliyad waxa ugu horeeya waxa weeye dalku inuu leeyahay currency lacag isaga uu leeyahay haye taasaa horta number 1 ahayd tan labaad maxamed siyaad barre 2 bilyan buu ka tegey dowladdiisa oo deyna 2 bilyan bay ahayd bis hawadaan ka baxnay waxaa jira waxa la yidhaha force major oo ah hadday dhacaan oo wax ma garanaysaa weyn oo shiddo ah markay dal ku dhacaan oo dalkii uusan jirinba deynna laguma yeelan karo lamana muxuu ahaa maxaa la yidhaahdaa faa'iidana waa la fariis garaynaya waa la joojinaya halkaa in laga bilaabay ahayd wasaaradda maaliyaddu iyo wasiirka maaliyaddu inuu ka bilaabo war annaga waxaa nala ku lahaa markaan burburay 2 bilyan halkaa ii dhig wixii ka dambeeyey hawadaba waa ka maqnayn waana la ogyahay maba yani sharcibanna ma qabto horta halkaa bahasha in laga bilaabo ayay ahayd dadka loo diray marka dad farsamadaas garanayay ma ahayn 4 milyan 5 bilyan bay la soo boodeen ma intaasana ku leeyahay walaalayaal naga cafiyo si deyn loo helo anugu wasiirka maaliyadda baarlamaankaan isku qabsanay qodobka koowaad baa laga booday arrinta deynta cafisku waxay bilaabatay dhammaadkii 80kii dowladaha saboolka ah debt relief wax la yidhaahdo way jirtay waayo waxaa loo adkeysan waayey institutionskan ama hay-adahan la yidhaahdo muxuu ahaa dagaalkii labaad maraykanku samaystay bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta caalamka waxaa la yidhaahdaa international monetary fund iyo IMF iyo kuwan bangiga adduunka la yidhaahdo labadaba waxaa iskale maraykan iyo ingiriis iyo anglo saxon baa leh oo lacagta ugu badan leh dhibaatayna u keeneen adduunyadii saddexaad oo dhan iyo dowladihii saboolka ahaa waxaysan bixin karin 100 kun baad qaadanaysaa 200 kun 300 kun baa ku fuulaysa sanad gudihiisa soo ma wixii markii la arkay inay disaster iyo shidayeen oo aan dalka bixin karin yaa la yiri barnaamijka hala sameeyo waxay u sameeyeen marka programyo la raacayo ama sharci nidaam la raacayo oo dowladdu walba raacayso annaga 30 sano dowlad maqnayd waxba laguma leh waxay la mid tahay waana mabda caalami ah damaha waxaan anigu sakriye leeyahay ma waxay la mid tahay qofka safiihiga ah ya waxba laguma leh dembi dhaaf ama ha noqoto wuxuu galo laguma laha ama maxkamad lama keeni karo waayo maba aanan jooginba horta halkaa in sheekada laga bilaabay oo la yiraahdo 2 bilyan baad nagu lahaydeen dowladdaad ku lahaydeen waa burburtay 30 sanaan maqnayn halkaa aan sheekada ka bilaabno 2 bilyan xataa naga daayay waa maasantahay marka meesha la khalday jidka la khalday kaa weeye ay kaadi waxaana moodaa in propaganda xoog leh oo sidii wax la qabtay loo samaynayo dadka Soomaaliyeed waxaan ma garanayaan masaakiin weeye soo ma garan in la iska khaldo jid ilaa oo la qardo jeexa la marsiiyo waraadadu gacali waxa yani aqliga caadiga wuxuu sheegaya war bal intaan deyn la gaarin shilin Soomaaliga iyagii ilaa hadda maba madax banaanin meel waxa naga haysta ciidamada ajnabiga meel dhaqaalaheeni mal lacagteen wadan haduusan lacag lahayn ma madax banaana completely ma madax banaana waxaanu ka mid nahay gobol Mareykan ka mid aan la midna ما مدح بنان واي دولار بعد استعماله ساعه هذا كان كبح سو دولار ما استعماله كوب كشا دولار بعد استعماله فينش واي ما ستة انا حفظي هي aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo waqtiga waa soo dhawaaday ha barnaamijka saxda ah waddankan Soomaaliya waxa shalay dumiye cadaalad darraya haddeerna waxa ku socdo oo la rabo in lagu dhaqo waa cadaalad darro iyo kursiga aniga kaale igu hay example aan ku soo qabanaya madaxweyne Farmaajo wuxuu rajeynaa Abi Ahmed inuu kursiga ku hayo
axmed madoobe wuxuu rajaynuu suga uhuru kiyato inuu kursiga ku hayo war allah ya war waddankan si dalkeenna annagaa iskale waxaan rabaa inaan soo jeediyo 30 sano kadib waa inaan si dimuqraati ah oo nidaama oo degan oonaan isku dooranno oon isku jecelnahay madaxweyne farmaajo maalintii uu madaxweynimada noqdo 2 madaxweyne oo min 4 sano soo xukuntay aan labada gacnood isqabsadeen koray u taageen sidaasay yidhahdeen haye waxaa la rabaa inuu meeshii meel kasii wanaagsan gaarsiiyo dadka soomaaliyeed oo dhan shakigii maanta qabaan waxa weeye inaysan doorasho xalaal ah oo xaq ah oo fair and free election ah inaysan dhacayn ayay aaminsan yihiin waxaa la rabaa inaan ka tanasulno xukun aan ku dhegno ee aan u jihaysano nabad dib u heshiisiin iyo dimuqraasiyad doorasho xalaal ah inaan gaarno asalaamu calaykum professor noo soo gabagabay arrinta lacagta iyo koleba horta waxaan rabaa aniga waagi markii aan yarahay qoyskiina lo owlahan jira haye loodu markay habeenkii soo hoyanayso way soo boortaa way soo yeertaa macnaha haye way soo ciidaa haye sacba sacow ka caana yaryah waa ka qaylo badan yahay markuu soo hoyanayo haye finaaqa ma waxba saasaa dhahaa finaaqa la dhahaa horta meeshaan waxaa waaye siduu sheegay xildhibaan sakariya dad aan wax qaban oo meesha iska fadhiya ayaa noo fadhiya marka si ay dadka ugu sheegaan inay wax qabtaan waa sacaas caana yaro ah oo qaylinayo oo soo yeerayo marka daynaa la cafiye daynaa la cafiye daynaa la cafiye wax kale oo dadka loo sheegaa la waaye marka maadaama daynaa la cafiye arrin banaankaa ay tahay oysan arrimo gudaha ahayn haddii masalan la dhaho ammaankaa wax laga qabta dadku waa ujeedaan iskuulaa la dhisay dadku waa ujeedaan jidaa la dhisay dadku waa ujeedaan mugta waxaa waa been jidna ma dhisin laakiin haddii la dhaho deyntii aan nagala cafiyey wuxuuna ay washington yaaliin marka dadkiyaa horta masaakiintaha waxaa loo geliyaa ookiyaala loo geliyaa waxaa caddaynaya suudaan waa dawlad sax oo anagabana taageerta 23 sano ayaa waxay ku jirtaa arrinka deen cafinta hadda markii la inqilaabay askarta oo nimankii ay yimideen beej cusub loo furay marka horta aniga deyntan asalkeedina qalad u ahay waxa lagu dareemay soo sheegay xildhibaanku waaye haddana yani waxay tahay maalinba waxaa nagula furaayo waa jabtar taas marka macno male xagga dhig waxaan rabaa arrinta oo sheegay abtigay oo ah oo yiri labadan nin waxay rabaan nin oo ajnabiya inay ku hayaan kuraasta ay ku hayaan dhibaatadu waxay ka jirtaa su'aal axmed madoobe ma asaga ayaa raba inuu uhuru kursiga ku haayo mase cabsida oo ka qaba farmaajo ayaa uhuru hoosgeliyeysa su-aashu waxay tahay soomaalida waxay tiraahdaa dibiga geesaha weyn looda geedkuu ka bixiya markuu ka bixiyana looda daba kacaa war waxaa la rabaa villa soomaaliya inaysan dadka ku qasbin inay addis ababa aadaan inay aadaan nairobi aadaan inay eritrea aadaan inay meel kale aadaan waxaa la rabaa villa soomaaliya inay noqoto geed hoos weyn oo aan shilin iyo wax dadka cuno lahayn oo loo soo nabad doonto arrintana haddii meesha ay tahay in laga qabto aan laga qaban weligeed afkeedu waa furaha dadka soomaaliyeed ma gaarin dawlad laysugu muruq sheegto waxaa la rabaa in la qabto dib u heshiisiin maanta waxaa soo baxday warqadaanaa ka soo baxday u-ga ka soo baxday waxaa ku qoran bishaan gudaheeda warqadan bishaan gudaheeda yani shalay ilaa bisha hore februaayo 7deedii 56,000 oo qofood oo Soomaaliya ayaa gobolka gida kaliya lagu barakiciyay oo ay barakiciyeen ciidamada diyaarada xamar looga qaaday dhul nabad ah dadka kuwa Kenya waxay imaanayaan marka kuwan ay meesha tageen marka su'aasha marka waxay tahay villa Soomaaliya maxay ka helaysaa dadkeeda inay isku qaxiso marka haddii ninkan oo kale to mataqaanaa Cabdirashiid Janan haddii villa Soomaaliya marna soo qabato ay qafaalato guri shacbiga ku xirato hadduu ka baxsadana wuxuu ku qasban yahay Kenya inuu hoos galo marka Cabdiraxmaan Janan waxaa Kenya hoos gelihay oo inuu Kenya taga soo raaca abuuray villa Soomaaliya waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed markay iimaanaysay siday ahaayeen
kolba hore uma dhaafi kartee please sideeda ha ku soo celiso Waa oo mahadsan- ammaanada lagu ammaanaystay sideeda ha ku soo celiso waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin. soo gabagabaynaynaa waa soo haye mawduucan ka hadlayna waxaa umalaysaa inuu meel aan loo baahnayn ba yahay waxaa la yidhi dad oo isku haysta baabu tawxiid ashaadkaa la isku haystaa waxaa ninkaas ku heshiimeyne aan ka hadalno nawaaqidul wuduu waysaqaadka maxaa jabiye hadda waxaa la yidhi sharci iyo dhul iyo dad marka la helaa dawladna si kale sharciga soo qabo laguma sheegan karo dawlad marka waxaa soo baxaysa dawlad maba nihin ah mala imaanaysa ana marka waxaan ka murmaynaa doorasha u dhaca iyo kalaasaan iyo kan dawladnimo horta saa u naqana ilaa hadda ma jirto aan isku raacna sida oo sharciga marka loo raaco shuruudaha dawlad caalami lagu yaqaan taas aan raadino